taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raage oo la shaqo ku joogay maalmihii ugu dambeeyay qaar ka mid ah gobolada dalka ayaa waxa uu kormeer ugu tagay cutubyo ka tirsan ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasi oo ku guda jiray howlgalo ka dhan ah maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab. howlgaladii ugu dambeeyay ayaa ciidanka jab xoogan ku gaarsiiyeen nabadiidka. taliyaha oo kormeerkiisu ahaa mid u kuurgelid iyo dhiirigelin isugu jira ayaa waxa uu ururka 6aad guutada 16aad ee kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab ku amaanay sida ay cadawga ummadda Soomaaliyeed u ciribtirayaan. saraakiisha iyo askarta kumaandooska xoogga dalka ayaa waxa uu ku dhiirigeliyay inay sii laba jibaaraan howlgalada ka dhanka ah kooxaha argagixisada. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raage ayaa dhiirigeliyay cutubyo ka tirsan ururka 6aad guutada 18aad ee kumaandooska xoogga dalka ee Gorgor oo iyaguna u diyaarsanaa gudashada waajibaadka qaran ee loo igmaday. taliyaha ayaa askarta iyo saraakiisha kumaandooska xoogga dalka ee Gorgor ku amaanay sida ay habeen iyo maalin ugu taagan yihiin dabarjaridda maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab ee caadeystay dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed.